Bitcoin waa lacagta adduunka ugu awooda badan leh, dadka qaarna ka dhigtay bilyaneero, malaayiin lacaga haysta. Lacagta loo yaqaano Bitcoin ma aha lacag la taaban karo amase la qaban karo sida lacagaha oo kale, oo way ka duwan tahay iyadoo lamana taaban karo lamana qaban karo. Waxa la isweydiiyaa mar kasta lacagtan ciddii samaysay, sababtoo ah lamaba yaqaano qofkii sameeyey lacagtan waxa uu yahay iyo meeshuu jooga toona. Cid garanaysaa ma jirto, waana su-aasha ugu badan ee dadku isweydiiyaan kuna dawaqsan yihiin. Waxaa laga yaabaa qaar badan oo idinka mid ah inay maqleen lacagta Bitcoins laakiin aanay garanayn meelaha laga isticmaalo iyo waxa loo isticmaalaba. Talow lacagtanna ma tahay lacag la taaban karo amase warshad leh oo warshadi soo saarto? Maya, lacagtan warshadeeda keliyaata waxa weeyaan waa kombiyuutarka in laga abuuro lagana sameeyo. Mucjisada lacagtan Bitcoin ay leedahay muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa ee adna dhammaystira fiidiyoga. Daawadayaal soo dhawaada, waa anigoo ah Nadira Saciid. Maalmihii ugu dambeeyey lacagta Bitcoin waxay gaadhay heerkeedii ugu qaalisanaa intii ay Bitcoin jirtay. Bisha afarteedii waxa lagu qiyaasay lacagta Bitcoin inay maraysay $38,000. Haddaba hal mar waxay kor u kacday si lama filaana oo ay dhaqaaqday gaadhayna heer aanay weligeed marnaba gaadhin lana filanaynin, taasoo lagu qiyaaso inay gaadhay $47,000 oo welibana uu sabab u ahaa Elon Musk. Haddaba waa maxay Bitcoin? Bitcoin waa lacagta adduunka ugu awooda badan leh. Hakariska caalamka amase adduunka ma haweysan karaan lacagtan inay u dhacaan amase ay jabsadaan, sababtoo ah awoodba uma laha oo lacagtan ammaankeeda ayaa aad u adag. Waa lacagta keliyaata cidna isku dayi karin inay kaa dhacdo amase ay kaa xado. Waa lacagta adduunka ugu ammaanka badan leh. Dad badan ayaa jecel inay lacagtan samaystaan amase abuuraan. Haddaba lacagtan sidee ayaa loo sameeyaa? Suuqan waxa looga ganacsadaa si cajiiba, qof kastaana awood uma yeelanayo inuu lacag ka sameeyo oo uu ka ganacsado suuqan, sababtoo ah imika haddaad kombiyuutarkaaga soo qaadatid oo aad tiraadid Bitcoin baan doonayaa inaan lacag ka samaysto, sidaa yara fudud kuma samayn kartid, waayo waxa aad u baahan tahay kombiyuutaro aad u fara badan oo welibana ka fara badan ilaa 10 amase 9. Sidoo kale waxaad u baahantahay inaad soo iibsatid mashiinka mininka kuu samaynaya amase lacagtan kuu qodaya hawshoo dhanna qabanaya. Mashiinka yara mininka kuu samaynaya ka ugu yar lacagtiisa waxa lagu qiyaasaa $10,000. Suuqan sida lacagta loo sameeyaa waa xisaab caadiya. Marka aad soo diyaarsatid kombiyuutaradaada iyo mashiinka yara mininka kuu samaynaya, waxaan la ilaawi karaynin. Mashiinkani wuxuu kaaga baahan yahay dab aan inaba caadi ahayn amase xadkii loogu talagalay ka baxay oo aad iyo aad u fara badan. Wuxuu kugu soo dalaacayaa leyrka lacag aad iyo aad u fara badan, taasoo u dhiganta lacagta aad ka samaynaysid Bitcoin-ta kala badhoo badh. Kaba soo qaad imikoo kale waxaad ka samaysay lacag ah $40,000. Haddaba leyrku wuxuu noqonayaa $20,000. Marka la qiyaaso wuxuu u baahan yahay dab aad iyo aad u fara badan. Xarunta ugu weyn ee Bitcoin waxay ku taalaa wadda la yidhaahdo Georgia oo welibana u dhow Ruushka. Waa waddan aad u yar, xarunta ugu weyna halkaas ay ku leeyihiin, sababta ay u doorteenna waxa ay tahay waxaa ka agdhow webi. Webigaas oo aad iyo aad ay ugu baahan yihiin kana dhalinayaan dab amase koronto. Sababta ay u doorteen magaalada yar ayaa ah webigaas oo ka saacidaya kana caawinaya dab fara badan sidii ay ku heli lahaayeen. Bitcoin-tu waxa ay leedahay seerfaro aad iyo aad loo adkeeyey. Waa lacagta keliyaata laga xadi karin lagaana jabsan karaynin. Lacagtan Bitcoin waxa la aasaasay amase la sameeyey 2008 amba 2008, taasoo suuqana soo gashay lana wada bartay 2009. 50 Cent fanaanka weyn ee caanka ah heesaagana ah ayaa noloshiisa wuxuu ku qoomameeyaa qiso ku dhacday kana soo martay Bitcoin 2014 markay ahayd. Wuxuu soo saaray album uu ugu magac daray Animal Ambition. 50 Cent ayaa xilligaas loo soo bandhigay markuu albumkan soo saaray in lacagtan Bitcoin lagaga iibsado. 50 Cent isaguna wuu aqbalay in 700 Bitcoin ah lagaga iibsado albumkiisan Animal Ambition. Xilligaasna Bitcoin 700 lacag badan may ahayn. Kadib wuxuu ogaaday 2018 in 700 Bitcoin ay tahay wax ka badan $9 milyan ay imika u dhiganto, taasna noloshiisa wuu ka qooma
qoomameeya waxaana ka hadla arrinkan dhammaanba saxaafadaha caalamka. 50 cent haddii uu wakhtigaa lacagtan sii isticmaali lahaa maanta wuxuu noqon lahaa bilyaneer malaayiin lacaga haysta. laakiin nasiib daro 2018 ayuu ogaaday 700 bitcoin inay 9 milyan oo dollar wax ka badan ay tahay. fikirkaaga ka dhiibo lacagta bitcoin waxa ay kula tahay iyo wixii aad ka aaminsanayd xagga commentiga. asxaabteeda qaaliga ah ee igu xiran haddaan su-aal idin weydiiyo maxaad jeclaysan lahaydeen inaan kasoo hadlo xagga commentiga iigu soo qoraa. waa anigoo ah Nadra Saciid. daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala socotay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkana ha ka ilaawin inaad like saarto videogana sii share garayso.